bandhiga buugga aftahan ee isbar luuqadda Netherland ayaa lagu qabtay magaalada Amsterdam ee caasimadda waddanka Holland. Buuggan ayaa ka qayb qaadan doona barashada luuqadda Netherland iyo isfahamka waalidiinta iyo ilmahooda. Injineer Barro oo ah soo saaraha buuggan ayaa sheegay inay fursad muhiim ah u tahay Soomaalida ku nool waddanka Holland iyo Belgiumka si ay uga faa'iideystaan buuggan oo macno weyn xambaarsan. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu soo saari doono buug ilmaha u gaar ah. ugu dambeyntiina wuxuu buugga guddoonsiiyay xubno mutaystay inay maanta fursad ay tahay inaan mataqaanaa ku daafuro buugga la yiraahdo adeegso aftahan self student Netherlands taal isbar macallin aan afka Netherlands fursadaas oo ka faa'iideysanaya maanta Amsterdam in lagu soo bandhigo buuggan la yiraahdo isbar macallin aan kaas oo loogu talagalay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dunida gaar ahaan bulshada ku nool waddanka Holland iyo waddanka Belgium kuwaas oo ay u sahli doonto barashada afka Netherlands marka waa fursad qaali ah inaan maanta ku soo bandhigo buuggaas la yiraahdo adeegsi aftahan waana buuggii ugu horeeyay oo ku saabsan in laga barta barashada afka Netherlands anigoo filayo inuu buuggaas qayb libaax ka tiri doono bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan qoyska dhexdiisa oo ay noqon doono mid isku xir u sameyn doono ilmaha iyo hooyadood sababtoo ah ilmihii waddanka jooga luqadda si fiican ay u yaqaaniin waalidkiina waxay jecel yihiin haddii ay bartaan waa fursad dahabi ah inay maanta bulshada Soomaaliyeed ay hesho buug sidan oo kale waxaan ogahay xilligii aan joognay annaga fursaddaas ma aanan helin marka maadaama dad badan ay waddanka muddo joogaan inay u faa'iideeyaan bulshada kaleeto oo hadda timid si aysan dhibaato badan aysan ula kulmin aan anagu ula kulannay taasna waxaan filayaa inay buuggan ay ka heli doonaan internetka inay ka heli doonaan librariyada ama biblioteekada waddanka meelaha u dhow inay ka heli doonaan communitiyada ka dhisan magaalooyinka waaweyn sida magaalada Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht, Den Bosch, Breda, Zeeland, Roosendaal waxaan filaynaa buuggan inaan meelo badan inaan gaarsiino waxaan kaloo kaga faa'iideysanayaa fursadatan in magaalooyinka Belgium aan gaarsiin doono magaalada la yiraahdo Antwerpen iyo magaalada la yiraahdo Kortrijk iyo magaalada Brussels waxaan soo saari doonaa buug kale oo la yiraahdo ku hadal afkaaga hooyo buuggaas waxaan ugu talagalnay carruurta Soomaaliyeed ee da'da yar ee waddanka la keenay oo aanan aqoonin af Soomaaliga laakiin inta badan qaarkood ay fahmayaan buuggaas waxaan ku baraynaa afkii hooyo gaar ahaan alifbeetada ba ta ja ha iyo qaabka erayada la isku xiro haddii ay noqon lahayd shaqal gaaban shaqal dheer iyo sida erayada isu raacaan iyo erayada labka ah iyo dhadiga ah waliba waxaan raacin doonaa sheekooyin gaar ah oo ku saabsan dhaqanka Soomaalida sababtoo ah dad badan ayaa hadda u baahan inay dhaqanka mataqaanaa ay si fiican u bartaan carruurtooda Tawfiiq Shira Muuse Somali Channel magaalada Amsterdam ee caasimadda waddanka Holland